halkani waa xaafadda Goljanno ee magaalada Hargeysa waa xaafad wadooyinkeedu ay qaban qowseed yihiin iyadoo meel la maraba waqtigan aanay xaafadani lahayn waxa ay muddo dheer ka dhursugayeen xukuumadihii iskaga kala dambeeyay ee dalka Soomaaliland ballanqaadkii u dambeeyay waxa ay la galeen golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa oo garwadeenka ka yahay Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soolteeko kuwaasi oo ballanqaad la galay in 40% ay ka bixiso dawladda hoose ee caasimaddu inta kalena ay la yimaadaan amalaha xaafadda meel ay meydka ka saaraan waqtiga ay geeri ku timaado hooyooyin tiro badan oo TV-ga caalamiga ugu waramay goobtan halista badan ayaa waxa ay ka waramayaan duruufaha dhinaca wadooyinka baahiyaha ay u qabaan iyo sida ay ula tacaalaan noloshooda caadiga ah hooyooyinkaasi oo TV-ga caalamiga kula hadlay goob halis badan ayaa waxa ay sheegeen maanta waxaan isugu soo baxnay oo halkan isugu nimid wadadaas wadala'aan xaafadan haysata ayaan isugu soo baxnay waxaan isugu soo baxnay wadada xaafadaas go'doonsan oo meydkeeda meel la mariyay haynin oo dhaawac maxay hayday qofkeeda buka meel mareed tog dheer baa meydkeeda la maraa dhaawac maxay hayday qofkeeda buka la maraa kaariyoonaha adeega noo soo qada meel noo soo maro ma helo waan ku cadibanaa maxay hayday uu soo wareegaa wayna diidaan way noo daadeen alaabtay sidaan markay meel maraan waayeen dhagax iyo buur iyo jarmeel ka maraan waayaan marka cabashadeeda waxaan u bandhigaynaa maanta waan u bandhigaynaa horta dawladda hoose waanu tagnay maayirkana waanu u tagnay wuuna qiimeeyay wadada hadduu qiimeeyo wuxuu ku qiimeeyay lacag $40,000 dadna wuxuu yiri qayb keensada qaybna aniga idinka bixinaya qaybta anagu aanu keensan lahayn oo $18,000 $19 ayaan anagu 9kii haysanaa 10kii baa naga dhiman waa taa cabashadii inantu idin badhigtay tu gudban iyo tu toosa midna ma haysano 60kiina xaafadu waa la daa dawlad waliba way soo martay way dhalatay maanta dawladii hore golaha deegaanka iyo waxaan u sheegaynaa madaxweynaha wadada Goljanno garanayana uu noo sameeyo oo noola hadla maayirka oo maayirkuna natiixgeliyo 9,000 baan oo la tagnay wuxuu nagu yiri 10 kale ku soo dara xaafadu waa dan yar lacag ma haysato waxaan ka baryaynaa in ay wadada noo sameeyaan arrintaanu ka hadlayno wadadu waxay noo jirtaa 4 guri baa naga xiga laamida 4 aqal baa naga xiga laamida meydka halka ku dhinta masaajidka ina xasan rakuub togdheer iyo raacali togdheer baa laga wareejiyaa qofka halka ku go'a ilaa naxash lagu soo qaado oo lala soo dhaadhaco ilaa halka la soo gaarsiiyo cidina ma qaado boqorka ninka sheegta ee cumaamada weyn qaatay horta anaga dhalay madaxweynaha Soomaaliland anaga dhalay hooyadii cadar cimriga ay too kalaanu nahay xaafadii Goljanno ee uu ka soo jeeday baa cabanaysa muuso maalintii codkaaga la bixinayay cid waliba kor iyo buurtan banaan bay noo ahayd waxa loo cabanaya waa $10,000 dadka qaniga ah ee Ilaahay wax siiyay ee dahabshiil u horeeyo ee tala somtaanu ku hadalay lacagtayadoo dhammi ku socotaa ku xigto ee som cable ku xigto ee cid kasta oo Ilaahay maal qabeen ka dhigay ay ku jirto waxaanu leenahay gurme degdeg ah naloo fidiyo annagoo buurahaasi iyo jararkaasi maxay ahayd toolay dhibta naga haysatay Ilaahay og yahay oo qaar maxay ahayd toolay ay ku wada jajabeen oo qaar ku curyaameen oo qaar ku wada jajabeen oo maanta dhibtana haysata habla yaryar oo maanta aad meel u dirtay oo maanta maxay hayday ama malcaamad soo dhiganaya ama iskuul soo dhiganaya waxaan ku yiri buuraha lagu dilayay iyo laagahaas iyo dhibaatadaasi maxay hayday halka la wada gelayo annaga oo maxay hay toolay dad waaweyn oo abshirtii ugu waaweynayda oo maanta maxay hay toolay masaakiin iyo maanta ku baris karsan bale habase yeeshay dhibtana haysatay noogu weyn maanta waa wadada ilaa maanta aanu raad qaadahay ilaa maanta waxaanu taaganahay wada la'aan meydkeega baabuurtu dib bay u yaacaan maalin walba oo hiniyo qiira qof kastoo laga dhinta halka ay noogu timaada waxaanu ka codsanaynaa intuu ugu horeeyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo salaan u dirayna iyo bogaadin iyo inankayagiya iyo Cabdiraxmaan waxaanu dawladii hore nasiib uma helin inay wada maxay tahay noo sameeyaan laakiin waxaanu ku rajaynaynaa dawladda aanu ka helno wada iyo waxaanu u baahanahay inaanu ka helno aanu rajaynahay iyagana waxaanu Ilaahay u baryaynaa cimri dheer iyo caafimaad qab waayeeliye iyo yar iyo dumar iyo gabigayaga waxa gaadiidkayaga dhibaata naga haysata waxaanu u baahanahay
dowladii hore kamaanaan helin dee dowladdana way cusub tahay khaasatan maayirka waxaanu u sheegaynaa in waddooyinka keliya hargeysa way dhammaadeen waddooyinkeeda waddada 2 waddo halkaasaa harsan oo weliba qaar sameeyey waxaan u malaynayaa inuu kharashka ka baqay waxaanay fariin cod dheer ugu direen xukuumadda Somaliland golaha deegaanka ee caasimadda shirkadaha dalka ee waaweyn sida shirkadda Dahabshiil Telesom iyo Somkebil oo ay sheegeen inay ka caawiyaan jidadkaasi adag Cumar Cali iyo Cabdirasaaq Cabdilaahi Jaamac TV-ga caalamiga ee Bulsho Hargeysa.